Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaray sida ku ballansaneenba waxaa sameyneynaa player rating hore ugu socono in goal saaxiibkay maxaa ka leedahay Aaron Ramsdale. Ramsdale maanta waxa waaye ciyaarta qaybtooda hore waxa waaye mu ahayn maaragtay yani xoogaa sloppy u ahay maaragtay goolka ugu hore marka nagala dhalinayo oo kale waxa waaye communication maaragtay mula hadlin maaragtay Saliba mula hadlaynin so marka communication mar hadduu xun waxa waaye playaasha xoogaa yar isfahankooda waa yaraana moogta so Two big saves uu sameeyey. the big saves hata goolka labaad waxa waaye xoogaa yar hata at least waxa waaye waa uu save gareyn karay maaragtay meesha ku aadanay goolka laga dhaliyo hadda arki lahayd so waxa waaye and two saves so I can't give more than 6. Ramsdale solid 6. Solid 6 anigu waxaa u maleynayaa xoogaa inaa xoog kor u yara qaadi lahayd 7 waayo labadaa saves uu laba sameeyey gool aa laga dhaliy clean aad ay sheet u qurux badnaayeen laba save oo waalna ahayd. mogta player ma kusii kartay shaqadiisu waxay tahay inay wax save gareeyo ma fahmin hadhe player waxaa lagu abaalmariyaa clean sheet waxa lagu abaalmariyaa marka haddii gool laga dhaliyo oo midna communication qaladkiisa looga dhaliyo midna caadi looga dhaliyo marka waxa waaye you can not rate him aan laba save bisuu sameeyey maanta o dhan bana la ataagayna Bologna intuu badan anaka haysanay marka waxa waaye anaka wax weerareyne so 6 solid. Okay, labada difaac Saliba waxa waaye he was outstanding qaladkaas yarkaa maahane waxa waaye inta kale waa ka fiicnaa marka waxa waaye Saliba maaragtay headayaashu bixinayay maaragtay this player his energy is unbelievable energy like quick haddana maaragtay he realizes things waxa very quickly maaragtay Ben White iyo wixii soo doomariyo maaragtay Gabriel iyo very quick headayaasha inta maaragtay qaladkaas keen so I will give him a solid 8. Okay, 8 for Saliba. Gabriel Magalhaes ciyaarta farsteeda hore waxa waaye Lucas sloppy u ahay goolka dhinac laga dhalin waxa waaye goolkiisa u ahay oo Madison uu dhiibay space kas dhan asaasi William Saliba dhinaca kale midigta u jira dadka space dhan ma siinaa gool ay ku xiraan macna mafahmino so waxa waaye Magalhaes waa ciyaaray si fiican u ciyaaray waxa waaye Brazilian garabkeeda laga duulayo horta gameka waxa waaye zaaid waa asna wax u waday so I will give him a solid 7. hadaa u gudubna labada full back Ben White gamekan saa aragtay shaqo badan ma uu haynin gamekan kii oo Leicester camal ma ahayn maaragtay Zaha I mean Crystal Palace sorry Zaha iyo balaayo kugu furanta maanta oo dhan lagu soo bursanayo marka gamekan waxa waaye gamekiis ma ahaynba so Ben White maaragtay ciyaarta involvementgeedana zaaid ma ahayn qof sii korayo soo dagayo maaragtay doo difaac ahaan waa fiicnaa dhexdoona ku jira laakiin maaragtay ma muuqanin so I will give him a solid 6. Zinchenko I will give him 7. Very solid 7. waxa waaye ninkan Bologna waxa waaye waa jiida waa pastama no 7 no I will give him 8 because maaragtay goolasha involvement dhinaca maaragtay Gabriel laga keenay dhan passka waxa waaye he was involving fahmno so communication ka maaragtay mara arkay defense ka agtiisa wuxuu ku sameynaa khatar waa ninka I will give him 8 not solid 1. skills aniga shalay oga yaabay qaabka Bologna u bixinayay hadde waa maaragtay garabkaas way ka shidnaa Brazil waxa u tashtay iyo maaragtay Ukraine waxa u tashatay Shaka intiisii ahayd Switzerland u tashteen. Okay, haddii aan usoo gadano midfieldka Granit Xhaka oo shalay gool helay isna oo aad u dadaalay Granit Xhaka shalay si fiican u ciyaaray gameka fastiisa hore waxa waaye sloppy u ahay laakiin waxa waaye kadib waa celi waayaba Xhaka waxay ila tahay roolkiisa in la geeyo hadda fahamtay Xhaka wuxuu Janis fiican u helayaa Xhaka wuxuu ahay shalay ninka maaragtay labaad maaragtay Gabriel Jesus oo ugu maaragtay touches in terms of box Bologna lagu dhex taabto maaragtay opponentiga Gabriel Jesus I think 15 times ugu taabtay alaf waxa ku jira Madison iyo asiga maaragtay waxay taabteen 4 jeer ku dhex taabteen boxka dhexdiisa so Granit Xhaka waxa waaye wuxuu ciyaarayaa maaragtay 10 role ku ciyaaraya inta ugu badan maaragtay goolna waa dhalna birtu ku dhuftay so Xhaka shalay si fiican u ciyaaray waxa waaye wili waa jeclaalahay wuxuu leeyahay u maleynaa buu baahnay Tielemans waxaan ugula keenin laakiin we still need maaragtay midfielder maaragtay inta hadii injury dhaco kale hadii kale waxa waaye iyo competition oo orana teamka ma fahmino so Xhaka I will give him solid 8. Okay, 8 and Thomas Partey I will give him 8 also. That guy waxa waaye midfield waxa waaye Xhaka iyo maaragtay wiilkan kale Odegaard iyo maaragtay iyo Zinchenko maaragtay waxay u warwareeganayaan nafaas ku helaan ninkan maaragtay stick caadi waa Vieira caadi waa dhexda iska taagayaa Bologna soo baxa waa soo bilaaba difaacada waa ka soo qaadaa garbaha waa geeha waa soo jiidana waa soo socona
mabano this guy waxa waaye haddii maaragtay sanadka horena waa ogeedeen maaragtay waxyaabaha maaragtay aan hore ugu maaweyne kii kale aan usoo gaarin top 4 u maaweyne maaragtay Partey dhinaciisa naga la haystay sababta once injury oo saa u galo Brighton yaan ugu bilaabana daxsuusto dhagtan ugu hayeen so waxa waaye waa player underrated waa horta player underrated gareey waa underrated waxaa la player maaragtay oo maaragtay hadduu kaa maqan yahay aad dareemaysid hadduu joogana aad dareemaynin waa uno Partey I will give him 8 Okay, number 10 role haddaan usoo wareegno Odegaard. Odegaard maaragtay shalay waa ciyaaray maaragtay players maaragtay waxa waaye ma aqaan xogaa yar waxa jiro laakiin asi shakhsiyad ahaantiisa individually maaragtay si fiican muu ciyaaraya laakiin team role markii laho teamka uu ciyaaraya baasasku dhiibaayo waxa waaye maaragtay meel dheer oo wax ka arkaya touchada maaragtay boxka uu ku dhex sameynaa waa player aad u fiican player maker waaye laakiin asi ahaan maaragtay season hore soo sharp u ahaa player maker soo gool dhalina darbeynay hadda waxa waaye hataa ma darbeynayo waa inta ma aqaan laakiin waxa waaye waa creatives maaragtay asa captain teamku si fiican u la ciyaara markaa red green I will give him a very solid 7 taasna waxaa la dhihi karaa haddii asaga iyo hadda keligii maahan Saka uu dhumaayo waxaa is leedahay meesha Brazilianka isku tashteen bunuunta dhankooda marsay hadde maaragtay Saka maaragtay dhibkaas waxa waaye Browning as zaid u jiida maaragtay tigti flicktan maaragtay dadka maaragtay Brazilianka maaragtay Zinchenko iyo maaragtay dhinacaas waxa saaran waa Zinchenko iyo Xhaka iyo maaragtay Martinelli Jesus markay isku qabtaan tag waa lagu daalina laakiin xagga marka aad fiiri maaragtay Saka asaar rabo inuu Browning jiido soo gambiyo rabaa maaragtay waxaas dhan macquul maaha marka Browning tigta hadii meesha laga ciyaar lahay teamka dhan balance oo ahaa lahay Okay, marka hadda Odegaard waxaa siisay 7. Okay, saddexda hore aan usoo wareegna Saka aan ka bil. Saka gamekan iyo game hore waa ka taalaa maaragtay hal chance oo hela umaleyna mana oo ka faa'iideysanaa marka Saka team role ka asan sidii Odegaard camal u qiimeynaa waxa maaragtay u siinayna u fiirinayna 7 aan siinayna game involvement-iisu waa yar Okay, Gabriel Martinelli waa sana unstoppable oo noo furay goolkii ugu horeeyay Premier League shalayna gool helay. Oh my god waxa waa 2-2 hadda maaragtay will that 6 games to go maaragtay a long way to go plus European Cups maaragtay ilaa iyo maaragtay FA Cup kuwaas maaragtay long way to go so ninkan waxa his energy waxa asna unbelievable waa just Jesus camal waa Jesus ade waa energy-giisu waa xooggan yahay alafu waa gambina waa pass ma flickta daarat waa asoo gambina oo paasa maaragtay halaas ugu fiican xogaa yar Saka intuu soo galo dhagdhag ku siisto dhinaca kale ka baxa marka waxa waaye energy-giisa 8 asina solid 8 Okay, ninka aan rabnay isna inuu isku rabnay inuu gool farbadan noo xiro Scott ninka galo waxa waaye Gabriel waxa waaye maaragtay meel oo hadda wuxuu imaaday oo asiga number 1 oo ka yahay gool oo xiri karo maaragtay ninkan waxa u maleynayaa Guardiola inuu message diro dhahay aniga inay aamintid ku rooneed camal baamuno way aaminu weysay Haaland iyo balaa doorata mugta xag dhibkiisu waxa waaye mar garab la saara mar garab kale la saara mar number 9 loo dira marka aamin daraa jirta ma fahmino ama maaragtay teamku maaragtay Grealish waxmaana garab asligeena maaragtay ka halaawe garab la geena marka cunug waa waale ma fahmino hadda waxa waaye role number 9 garbaha free adii iska warwareeg number 9 taagnaa waa la dhalay bis marka waxa waaye waxa malena Haaland inuu problem heli doono maaragtay goolasha maaragtay la tartami doono waxa waaye 2 assist iyo 2 goal game-ka aad u shaqeysay I will give him wuu xiri kara gool ka badan wuu xiri kara chance badan oo cune maaragtay goolka chipka ugu horeeyay goolkaas Sanchez ugu soo dhacay Brian Sanchez maaragtay gool ka xiray Manchester United so marka ninkaas waxa waaye I will give him 9 out of 10 so 10 aan siilay laakiin waa gool badan cune ninkaas waxa la shalay 4 inoo dhaliyo 4 mid xitaa uu bixin karo Saka sii kare maaragtay waa isku day laakiin maaragtay 9 I can't give more than 9 because goolish oo cunay man of the match na soo Okay, intaana waa playershii gadaal waxa ka imaaday ayagana Tomiyasu ayaa asna soo muuqday iyo Emile Smith Rowe horta waxa waaye sanadka hore maaragtay markii maaragtay teamku bedel la sameeyo maaragtay team qof ka daalo ama ka dhaacmo waa nix jirna waxa dhijirna yaa la bedelaaniyo maanta yaa la keena aan dhahay hadda waxa waaye waxa la siiba maaragtay muxuu ahaa Zinchenko la siiba Smith Rowe waxa la kale Kieran Tierney la keena no problem waa mid adag la keena leedahay Ben White la siiba waxa lagu keenaa Tomiyasu dib ma jiro macnaa dad maaragtay sab lagu qanacsan oo fiican maaragtay oo dib keeni karin maaragtay la keenaya marka aad u faraxsanahay waxa ayaga dhan standard 6 waay
waa badine. Okay, Arteta. Arteta I will give him 10 waxa waaye teamkan dhalaha kasoo maray rafaad kasoo maray inaa maaragtay teamka dressing roomka maaragtay ninka hortiis energy wax kale waa videoyaashiisa aad daawatay maaragtay marsha dressing roomka maaragtay sida teamka oo encourage gareynayo maaragtay wax walba oo sameynayo u dhiirigelinayo teamka iskugu aadistay hadii goal uu leeyahay hadii kale waxa waaye never look down waaye basiga dhanba ma fahmino so I would give him 10. Okay, ninkan ilo waxa waa isna reefka oo shalay aan saas oo ugu lahayn ka involve fara badan aan ku lahayn Reef shalay wuxuu consistent oo ahay waa fiicnaay ma zaad musii xumeen Vardy oo mar walba isu tuuro ciyaarta ku horeysay maaragtay la saala ciyaar penalty anu helan sax ma isku tuuro penalty waa la inconsistent of the last year so this consistent to I will give him 5. Okay, waxayno haray fans. I will give him 11 out of 10. 11 out of 10. Fans waxa mar walba meesha taagan yihiin waxa waa lagama dambeey karo waliba goolkii Saliba markii laga xirisay oo encourage gareeyeen xalay waxaan daawanayay presska uu sameeyay Mikel Arteta wuxuu dhahay weligay ma arkin oo dhahay fans oo intee ciyaaryahan daayar intuu gool iska xiray haddana sidaa u support gareynayaan hadda maaragtay ninka wuxuu qabanaya ka badnaay ma fahmano maaragtay Saliba waxa waa goolku uu iska xiray laakiin communication loo ah laakiin maaragtay marka waxa waa Saliba waa qalday laakiin maaragtay ma uu fikirin ma dhihin aniga waa gool iska dhaliyay maaragtay waa isdhiganay waani joom jirin gool dhali tayac Usmaneen oo soo xirayna waa shakada saas aad ba maaragtay waxa fanska waxaas mu qabanayaan inta qabanayo loo jeedaa nick play waa fiican communication inuu qaldan bis maaragtay loo sheegay si Ramsdale in isla aniga iskale inuu dhaw maaragtay keeper loo daayo ama uu dhaho gadaal u noqo ee isla wadaagaan hadalka maaragtay anaga waa ogaaba aniga maaragtay taas in hoos noo dhigan gool xireyno sababtoo energy team fanka the coachka Emirates Jesus oo maaragtay already adapted to Emirates inuu gool ka xiro laba game already maaragtay laba game Emirates oo ku ciyaarsan gool wata ciyaar marabo oo penalty laan marka waxa waa godkan ninka soo gal waa la jabsanaa waxa la ciyaar channelka fiirsada subscribe saara naga socda insha Allah anaguna dadaal doona okay akhyaaray waa ku kaasa player rating kana waa naga inta idinkana fikradihiina waxaad nagu la wadaagtaan qaybta commentiga waa idin dadaaleyna wax walba content Arsenal ku saabsan oo idil waa soo gudbinaynaa iyo lixda Premier League oo weyn khaasatan dadka aan jecelnahay mar walba inay lose gareeyaan Manchester United Liverpool Chelsea City kaasoo idil waa soo qabanayna marka isla socod wanaagsan sida iyo nabadgelyo ayaan idinkaga tageynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.